golaha hal-abuurka gobolka Sool ayaa xalay munaasabad dhiirigelin ah u sameeyay Cabdinaafi Maxamuud Siciid oo ah artist ama farshaxaniste. Cabdinaafi ayaa goobta ku soo bandhigay sawirro uu gacantiisa ku sawiray isagoo sheegay inay dareen gaar ah u leeyihiin xilliga uu sawirayo sawirrada kala duwan. والسلام يا متشرفت كلا دوين شرفت يوم الجها يوم أمس كسكله هاوجو ريان دليل إنه بدن هاي أرضيدا إسكولا دا دلت بركة السنة متسول وشيدين يا هم بلينا ودريا صاحبك عبد الرحمن موسى أو سوق برنامج كان يقلق بقاطع أو حبين تدين كيسة واحد فرشحنك هالابورك جوال كسول يقول لك عبد الرحمن جامعة سوى جامعة وحبرشة ونسوق قاعد كرواي أفكي يجيب عوانا أكو هالليا ومحي توي حبيني سجى مثلي سنة مركين تلاقي ما دو دي برامج كن عادي ودحق لنا صور كني واشي كذي قيب اللي باح هبر دقاقو حالة سكولها حيوانك ugu weyn yahay maxay tooy libaaxu ee ugu yartahay bisadu marka khaladaadka aan ku aragnay buugta Soomaaliyeed aynu dhigan jiray leeyahay manhaj Soomaaliyeed baan ku soo korray oo maxay tooy iska burbursan marka inta laga yimaado waxaan ku dhigan jiray habar dugaag oo gari qaybta ku jiro digriga isaga la cunaay sidee uu qayb soo galaa taas waa khaladaadka aanu dib markaanu ka fakiray aanu aragnay marka intaas ubada hilibka way cunaan halka safan halka wax dhixtaa la waa hashi ay qaybsadeen marka qaybta suugaanta waxaan u deenayaa ustaadka waa sheekada ugu faafitaanka badnayd iyadoo video ah waxa duubay Amiin Caamir oo maxay tooy si suugaanleedu ugu abtirsato raaga ugaasiyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan boqoliyaha farshaxanka Soomaalidu ugu abtirsadaan Amiin Caamir labaduna waa laba hibo oo Ilaahay dadka bini'aadanka ku manaysto waa sheekadii ahayd wan iyo waraabe uu ka sameeyay saarka Calays Ciise Kaarshe wuxuu yiri wariyawna waxaan leeyahay maalin baa intii uu lumay wankana lumay saa waraabihii baa helay isagoo meel cidla ah jooga gooray tahay fiid ama maghrib afarta waxyood buu soo eegay waxa arkay wankanoon cidna la joogin ariya uu ka lumay iyo maxay tooy wax baadi ay cid ku raad joogtaa uu waayay intuu ka soo horbaxay uu qaadan waayay buuriya wana qoom leeyahay qoslin buuriya qoom leeyahay waxa loo soo qaataa sheekooyinka noocan ah waxyaalaha qaadan waaga waa sheekadii aan u maleynayo in lagu dhigto aan ku dhigtay fasalkaygii 7aad waa sheekadii maskii iyo ninkii taasina aad u wada haynaa filayaa laakiin waxaad moodaa soo badaasho badda soo gurguurtaba waxa la cilado badan ka xumaa bireegii baytarigu charge male geerkii bedeli waa baasiinku waa diiq beerbeeri kar bool baa lama shukaantii oo beerbeeri kari waa باور ريحلوه بلستي عيالكي إيش يبلع لكو هيان ويالكو بقوة وحتركوا بحيان بيهو خلاريهن قد عربات بالوضوء ضيحي مصابحين هبين كينا وابنع مالنتينا وابعض وشدها برغانية بحادقا ايو بهالها دحتوغا أد لوغا بغيا تتكبير كدقوا بهوليا ووحي هاي بريق مرياتك marka kama hadlayo markab kale aan u soo farsit qaab khaldan in la inoogu soo gudbiyay masku geedka kuma marmarnayn ee saas u saaraa halka waxaad ka aragtaan xawaalkii wiilka iyo maxay tooy xeradii iyo aqalkii oo aan ka fogeyn ninkii oo gudintii wata waa aragtaan marka
abwaan yuusuf ismaaciil ayaa isaguna barnaamijka qayb ka ahaa isagoo sharaxaad ka bixinayay xayawaanaadka kala duwan iyo magacyada loo yaqaano. fil baa la yiraahdaa buuri fil meelaha qaar iyana waxaan ka maqlay in la yiraahdo wirin la yaal magac noocaas laakiin isagu barra wuxuu noogu sheegay fil inta mar inaga wada waa la isku fil weeye. wadarta baalkii la yiraahdo goodirka urur buu yiri urur goodir ah waa goodirkii markiisii halka markuu marayo goodirka wuxuu kala saaray magacaan dib idin ka sheegi doono ugaadha ayuu wuxuu kala saaray barre ishin iyo yaris laakiin waxa aad ugu afdheeraaday oo barre ka afdheeraaday xaggaas ninkaan idin sheegayo xabad ibraahim la oran jiray marka ugaadha ishinka la isku yiraahdo waa gumburiga gorayada biciidka iyo goodirka inta ishin baa la isku dhaafaa afarta nooc ugu waaweyn goodirka marka ishin iyo yaris si kala qaybsan baa leeyahay marka goodirka labkiisa qaybta ishinka ayaa qaybta yarista wataala ku qoran baa waxa la yiraahdaa daraad qaybta yarista dhadigeedana caari baa la yiraahdaa ishinkana labkiisa waxa la yiraahdaa labka ishinka laba qolle dhadigana waxa la yiraahdaa adeeriyo waa qaybta biciidka oo ishin iyo hal goodirka oo ishin iyo yaris uu si kala saaray dhadig inta yaryar mar wada dilaacda ee waxaan mar wada dhalatay wada kacda goodirka baalkaado sawiro ama dhadigo ayaa la yiraahdaa kuwa yaryar isku yaacaya aan ku jirin labkii magac baalan ka soo baxay laba neef oo xoolo oo meel maraya waxaan laba neef aan yaa u yaqaan uma naqaano laakiin ugaarsatadu labada goodir ee meel maraya waxay u bixiyeen magacaas neehi ayaa la yiraahdaa wiil laba xabay goodir ee meel maraya laakiin inagu laba riyaad laba halaad laba sac uma naqaano laakiin iyagu waxay yiraahdaan waa neehi waa laba kaliya marka waa goodirkii saddexdiina sidana u bixiyeen saddexdii xabana saalax baa la saalax waa isku dhigid kala dhihide magacu saalax ma aha waa saalax saas weeye higaada yarista ayaa bilaabatay inta hore shinkan ka soo baxnay yarista waxa ugu horeysay cawsha wadarteeda goosin baa la yiraahdaa ayuu yiri waan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka labka meelaha qaar jaxaad baa looga yaqaan waa labka cawsha jaxaad meelaha kale looga yaqaan laakiin labada magac baa isaga kale jaxaad iyo jaxaad halkaas daada ahaa baa kama halkaas daaqulaad aragtaa ma filaya waa jaxaad oo haaba ka maqan tadamana waa jaxaad marka jaxaad iyo jaxaad ba labka cawsha waa la yiraahdaa ayuu yiri labkii yaraa caalcad ayaa la yiraahdaa buu yiri masaalna waa dhadigii bahasha bilaageesa ah waa garanuugta waa la yaqaanaa dan garanuug waa wadarta labka weyn waxa la yiraahdaa liig afartulle qoraa'istaansa iyo Siciid Cabdisamad Murtumeer ayaa iyaguna goobta ka soo jeediyay hadallo dhiirigelin ah. rabbil caalamiin dhalinyaradu wax qurux badan bay qabteen waan mahadinayaa barnaamijkan. bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh quruxdii ugaadha iyo sharaxaadeedii waxaa dhameeyay macallin yuusuf iyo haddii laan ku yahay farshaxanka weyn ee naafic casayr maasha allah iyo saaxiibkii marka wax la soo bandhigo in wax la isa saxo waa fiican tahay wax qurux badan oo qiimo leh bay soo bandhigeen maasha allah waa waxaynan ogeyn oo hadda ku baraarugnay waa guul baan leeyahay inta anigu kaga tuman maayo intii ka dambaysa waxaan kaliya idin sheegayaa maqaawirta isugu timi halka kan mudane iyo marwaba leh ciddii aan ogeyn iyo ciddii ogba waxaa jirta bandhig carweed ama bandhig buugeed hadba sidaad u taqaaniin oo lagu qabanayo gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood
cid walba wuu u yaalaa halabuurka sool isku soo dibarideen farshaxanka quruxda badan. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha golaha hal-abuurka gobolka Sool Maxamed Axmed Jaamac Hoobaan isagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay farshaxanku ama artistku. Hoobaan ayaa dhiirigelin u sameeyay Cabdinaafic isagoo sheegay inuu Cabdinaafic sii wato dadaalka uu ku doonayo inuu ku soo bandhigo sawirro tayo leh. Muna Axmed Cabdi, Muna Mandeeq, Dalka TV, Laascaanood.